salaamaya idin lahaantiinba meel walba oo caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena mawduuceena maanta waa mid aan si toos ah uga faalloon doono ama aan ugu falanqayn doono fanka Soomaaliyeed iyo muddadii ugu dambeysay ee 10 sano ahayd meesha uu maray iyo meesha uu kale iyadna muqbaahiyahan wuxuu idin la wadaagi doonaa ama uu idin soo bandhigi doonaa raggii ugu cuslaa ee muuqaalada heesaha Soomaalida soo saari jiray oo gabi ahaanba iska joojiyay shaqadii ay 10 sano ee u dambeysay u hayeen ummadda fanka jecel sida aan la wada socono waxaa bariga iyo geeska Afrika ka socda tartan xoog sida aan la wada socono waxaa bariga iyo geeska Afrika ku soo socda tartan xagga soo saarista muuqaalo tayo leh oo la jaan qaadi karo dunida inteeda kale Itoobiya iyo Kenya oo haatan ku biirtay dunida koowaad marka la eego dhanka soo saarista muuqaalo tayo leh fanka Soomaaliyeed oo la rabay inuu ka jawaabo arrinkaas isla markaasna wixii culus soo wajahay lambarkow Haataf Cabdi oo gabi ahaanba ka fadhiista muuqaalada heesaha Soomaalida labo Cabdullaahi Kingi oo isna kaas u taagay warshadiisa Tusmo Films Liibaan Jaamac oo isna go'aan adag dhawaan laga filayo ama laga sugayo inuu garoonka YouTube la soo galo haddaba ma jira qof badbaadin kara warshadaha soo saara muuqaalaha heesaha Soomaalida saway dhinteenoo rajaba ma lahan fadlan la wadaag sida ay kula tahay riyigaaga iyo sababta uu fanka Soomaaliyeed u sii dhimanayo mahadsanidin waad ku mahadsantihiin dawshadiina soo dhawaada welcome